maalinta deegaanka ayaa si weyn looga xusay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. Munaasabadani lagu xusay deegaanka oo ka dhacday xarunta wasaaradda deegaanka ayaa waxa ka soo qayb galay duqa degmada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi, kusimaha barasaabka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi, isuduwaha wasaaradda deegaanka Fadxiye Yuusuf, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, hogaamiyaasha dhaqanka. waxaana halkaasi lagu soo bandhigay dhir abaqaal oo ay beertay wasaaradda deegaanku, iyadoo halkaasi laga jeediyay khudbado taabanaya muhiimadda uu deegaanku leeyahay. Mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay ayaa dadweynaha ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiley ugu baaqay inay ilaaliyaan deegaanka isla markaana ay iska qabtaan dhuxulaysatada dhirta xaalufinaysa. Sidoo kalena waxa uu mahadnaqeen wasiirka wasaaradda deegaanka iyagoo ku wargeliyay in loo baahan yahay gaadiid uu ku hawlgalo xafiiska deegaanka ee gobolka Gabiley. deegaankeena dadkeennii baa ku soo duulay maanta geed inoo fayoobi ma jiro. haddaad halkaa buurta Shariif Cali ka dhaadhacdo geed inoo fayoobi ma jiro. waxa weeye dhirtii waa la shidayaa, waa la dhuxulaynayaa, muxuu ahaa xoolihii waa laga ootay. meel fayoob oo aad ag dhigtaa deegaankii ma jiro. waxaynu u baahan nahay si ay nolosha aynu rabnaa inoogu suurto gasho in loo soo jeesto in deegaanka wax laga qabto. waxaynu xusanaa maanta maalintii cimilada adduunka, maalintii deegaanka adduunka oo aynu ku xusanno gobolkeena Gabiley caasimadiisa Gabiley. runtii laba qodob oo deegaanka khuseeyo baynu socon doonaa. guud ahaan deegaanku aad iyo aad u muhiim u yahay. dhir la beero una kuma koobna, laakiin guud ahaan wuxuu u baahan yahay inaynu saddexda qaybood ugu waaweyn u qaybsamayaba aynu ka hawlgalno. hadday noqonayso in dhirta jirta la ilaaliyo, hadday noqonayso in dhir cusub la beero, hadday noqonayso dhulka ay biyuhu jarayaan in la badbaadiyo, iyo hadday noqonayso duurjoogta. Gabiley haddaynu nahay waa inaynu geedkeena ilaashanaa oo aynu ugaadheena ilaashanaa oo dhulkeena nabad guuraya xoog iyo caqli iyo aqoon waxaynu hayna meel intaynu isugu keeno aynu dhulkeena ilaashano. waxa weeyaan laaga badan baa dhulkii ka dilaacay, dooxiyaa carradii wanaagsaneyd carro guur hoose iyo mid saraba way nagu socdaan. marka deegaanka laga hadlayo waxa weeyaan waa noloshii asaaskeeda weeye. marka sida aynu la wada soconno dhibaatooyin badan baa yaa lagu sameeyey, hadday tahay xaalufintii, hadday tahay wasakhayn. kadib markii munaasabadaasi soo idlaatay ayaa maamulka degmada Gabiley iyo ka gobolku waxa ay kormeer ku soo mareen dooxa magaalada Gabiley oo ku fidaya dugsiga Qalax, isla markaasina xaalufiye dhir badan oo ku hareereysnayd. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Home Cable TV, gobolka Gabiley.